kufsiga loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 sano jir ah isniintii toddobaadkan ay soo ifbaxday in la kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaybta waqooyiga ee Puntland maamusho ayaa saameyn taban waxa ay reebtay arinteeda ku aadan dilka iyo kufsiga loo geystay inantan yar ayaa waxa ay badashay qulubta shacabka Soomaaliyeed falkaas foosh xun ee lagu la dhaqmay taas oo dalka iyo dibadda Soomaalida ku dhaqan ay sheegeen in loo baahan yahay cadaalad si degdeg ah in dadkaas falkaasi geystay la horkeeno Zainab Cabdiwahaab waa hooyada dhashay gabadhaasi la dilay ee Aisha Ilyas Aadan waxay ka waramaysaa sida falka uu dhacay meedkeeda qaabka guriga hortiisa loo keenay iyo wixii ay dareemeen marka shalay oo dhan baan wareegaynay meel walbaan maray saaka markuu waagu saa u bariyay oo la galay maaragtay salaadii oo laga soo baxay baa dadkii u horeeyay xagga xaafadda soo socday waxay dhaheen gabadha Aisha meedkeeda halkan u yeelay oo yaalkeen marka saas ay arrintu ku dhacday meel aniga adinka dhexe maaragtay mar ay tahay adinka u dambeeyay mar ay tahay xaafadan anagu aan deganahay gurigaasaa loo ballaqay gurigii gaarigaa ka soo baxay adigu aagaan niyad ahaan uu ku istaagay anigu xalay ka seexanay niyad ahaan meeshuu ku istaagay baan is iri haddana xusbu yiri aniga niyadayda mana seexan waxaan is iri gurigan gaariga xilligaa ka soo baxay salaad lama gelin maxay tahay wiil baa wuxuu ugu yiri baaritaan baa socday wiil baa kula soo hadlayo wiilkaa la hadal buu ugu yiri baaritaan waan wadnaa saas ugu yiri wiil laakiin anigu waxa warbixina kaama siin karo waxaa weeye jid baana dhex mara annagii xaafad kale guriga nagu soo jeedo oon waxba noo jirin guriga labaad ee ku dhegan iyo gurigaasna saa noogu soo jeeda dhexdooda oo kan kale xaggiisa xigaa laga helay waxbarashada galaadka waxay maraysay lixaad bay ahayd iskoolka qur-aankana adigu 18 jis meelaha 19 bay huud bay maraysay huud ka gabar la koriyo la kolkolinaayo sharaf iyo karaamale abiya ninkii kibir kufsi oo la bareero banaanbaxyo dhinacyo kala duwan ahaa oo ay dhigeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed midkood waxa uu ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland arday wax ka barta magaaladaasi goobaha waxbarashada iyo waliba haweenka qaybahooda kala duwan ayaana banaanbaxa khudbado ka jeediyay iyagoona ka dhiidhiyay falkaasi foosh xun ee loogu geystay Aisha Ilyas Aadan maantana wax lagu xumaado in anagu baawan tireegan boo laga war walaasheen sida loo kubsado mana yeelin waxaas ma rabna in lagu xaliyo dhaqameed waxaas reer hebel banaaye nimanka hadii ilaahay qana madaxweynaha waxaan ku codsanaa inay gabadha walaasheen oo la dulmiyay in waxa uu ilmaha sidigaas la tabaxay kala garanaysa hata qof la qaangaar ma aysanaa ilaahay waxaan ku barina ku in adduunka aakhira ilaahay ku cadaab gabadhaasna cadaaladdeeda oo maan wax kale ma doonayno waa aragtay indhihi baa qaar laga jaray dhagihii baa laga jaray kufsi waa loo geystay iyo tacaddi weyn waxaan leenahay dawladda Puntland iyo dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa gabadha in waajibka ay leedahay si diinta islaamku qabtay loogu soo hiibiyo waxaan anigu u sheegayaa odayaasha dhalacaasha oo ay ka soo jeedo iyo odayaasha wixii kufsaday Allah cadaabe inay qabiil eegin inay qaran eegaan inay gabadhooda maanta wixii loo geystay ay dil joogashaa ku xukumaan madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay xaflad jaamacad arday lagu guddoonsiinayay shahaadooyin waxa uu ka sheegay in loo baahan yahay in tallaabo adag laga qaado dadkii ka dambeeyay dilka iyo kufsiga ay u geysteen Aisha Ilyas Aadan waxaad ogtiin habeenkii xalay ahaa waxaa lagu kufsaday gabar yar oo 12 jir 13 jir ah magaalada Gaalkacyo oo si xun loo farxumeeyay haddana la dilay oo haddana intii la soo qaaday gurigooda la hordhigay waxa sameynaya waa dhalinyaro waxaan rajaynayaa dawladdu inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ku xadgudubta karaamada bini'aadanka iyo nolosha waxaan rabaa inaad idinkuna qaybtiina ka qaadataan akhlaaqda iyo adaabta iyo horumarka iyo ilbaxnimada iyo danaha dadka in la ilaaliyo gabdhuhu waxa loo baahan yahay waa hooyadeen waa walaasheen waa xaasaskeenni waa mustaqbalkeenni waa dadka runtii karaamadeenna ay ku jirto waxay u baahan tahay la dhowro
ifraax axmed waa gabar u dooda dhinaca xuquuqda haweenka dhowr jeerna soo bandhigtay gabadfallada hablaha loo geysto magaalada Dublin ee caasimadda waddanka Ireland iyada oo joogta ayaana BBC-da ay u sheegtay in madaxweynaha looga baahnaa fariinta uu gudbiyay mid ka adag si loo ciqaabo kuwii falka fooshaxun ku sameeyay Aisha Eliyasadan waxaa filaya madaxweynaha inuu bixinayo go'aan ah oo in degdeg dadkaas lagu keenaa sharciga in cadaaladda degdeg lagu hor keenaa laakiin hadalkiisa wuxuu u hadlayay qof activist oo tuugaya dowladda Puntland oo weydiisanayo in mataqaana cadaalad loo helo gabadhaas asigoo ah madaxweynihii maamul goboleedka asigoo ah qofkii go'aanka lahaa wuxuu u hadlayaa asigoo ah inuu weydiisanayo inay Puntland cadaalad hor keento xildhibaan Saacadiye Samatar waxay ka mid tahay baarlamaanka Puntland dhankeeda waxa ay muujisay falkaasi iyo sida uu u saameeyay bulshada deegaanka gabadha yarta Caasha Faadumo lama dhaho Caasha Maryam lama dhaho Caasha Ilyas bal dhaw warnin baa dhalay oo way idin la dhalatay adeer baa u tihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo marka ugu horeysa waxaan leeyahay madaxweynaha baaqo soo jeedinaya ninaan diin ku aqaan weeye madaxweyne Dani waa inuu sharci degdeg ah ka soo sameeyo oo toogasho ku xukumo sababtoo ah kufsiga la caadaystay baa keentay in gabdhihii la dilo waa la dilaa hadda balday mideeda kale anigu waa ka seexan kari waaye weligay kama hadlo waa markii koowaad aan ka hadlo sababta hal gabar baan dhalay adduunka ugu jecelahay wiilashada ka jecelahay gabadha yarta ah haddii xabad lagu dhufan lahaa xali sida ugama murugoodeen waxa lagu dilay bur oogadeedii waa la duubay korba lagu xidhi kalulata weliga kuna kugu aqoonsado inadkii xumaatahay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland waxa uu ku baaqay in la dilo kuwii dilay Aisha Eliyasadan oo ahayd 12 sano jir aan qangaarin isla markaana inta la qafaashay kadib lagu dilay magaalada Gaalkacyo hadday cadaato waxay mudan yihiin 4 in la dilo oo waliba meel fagaaraa lagu dilo oday iyo magaciisa iyo anigu waxaan u maleynayaa xishoonaya inuu soo roonaan ninka hal siiday ama alla ka baqaya ama xishoonayo siisa falkaas gabadha yar oo 12 jirka ninka farxumayntana u geystay masanad dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaadeen meydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaaraysa soo taago yaa la dilay ciyaar baanu iyo aab baanu ahay anigu insan odhanayn baanu malayn hadduu xishoonayo damiirku jiro waa kuwa la mid ahoo ehel waarka wacan ceebka ma korhiyo sidada kubsabtahayood korkoodaba ugaadha ugu dambayntii Maxamed Maarre waa hal abuur suugaaniyahana waxa uu ku cabiray oo uu maskaxdiisa ka shiilay erey suugaaneed uu kaga hadlay falkaasi foosha xumaa ee lagu dilay laguna kufsaday Aisha Eliyasadan waxaanu yiri cakuye way inaan ragow cadaawada kugu jirteen gabdhaha ugu keecudoon ahay ku ciqaabaysaa goormay cindigaaga iyo calooshaadaba gasho wiilow la colowday dumar ninka cambariya amaal cishadii hore xoogaye caashana ku daree dilow miyaanay cadkaaga iyo walaasha cudoon ahayn miyaan cirdigaaga iyo xaaskaaga carfoon ahayn miyaan caqli gaabanow sagaalgu calool ku jirin miyaanay culays dartaa cuntada awgaa u nicin miyaan caanaha macaan horraadkeedana ka cabbin maxay tahay ciilka iyo ceebkaa dumarkula kacdee cishaba midu xoogaysaa sawkii raggu caawiyow haweenka cisayn jiree ciilkiiyo la necbaa ilmada maxaa caawana ragow cuqdadda ugu beeraysaan cakuye uga oohisaan waa kuwa la mid ahoo ehel waarka wacan ceebka ma korhiyo sidada kubsabtahayood korkoodaba ugaadha kubsiyo laba dheerta korkoodaba ugaadha
Soomaaliya dilalka iyo kufsiga hablaha aad ay ugu badanayeen sanadihii u dambeeyay waxaana hore loo xasuustaa muuqaalo faxshi iyo waliba foolxumo abuuray oo baraha bulshada lagu baahiyay hase ahaatee arintan ilaa haatan aysan dawladda federaalka Soomaaliya war ka soo saarin Aisha Ilyas Aadan gabadha lagu dilay gaalkacyo gobolka Mudug ayaa dadku badankood calaamad su'aal saarayaan waxa ay dawladii dalka ugu sareysay madaxdeeda uga aamusan yihiin habaryartaayo kahayadadaayo inta kula walaalo hilibkugu wadayaal aynxuma lagula kaco aynxuma lagula kaco ismalaawa moogolidiyaayayay hooyadaa iyo kowsar habaryartaayo kahayadadaayo inta kula walaalo hilibkugu wadayaal aynxuma lagula kaco aynxuma lagula kaco ismalaawa moogolidiya